وحي شريعة الإسلام كخلافسا أنا طريق النومار سيدنا طريقة هجام بكمان نقضه إلى أن علم الشريعة هيرك جارمها نحن وحبا أقول وحنا أقرن وحنا قرن أنت ورن دير يساف قرب كجشدة تصبح معاك وراي دور حبا صورك كوريته صوفي ما أهي عدلا ننك يلم نظام كزيارة قبرها الله صوب باخده قبر كان لغو تمانيو قبر كان نغحان عدلا ماشي اسك تاغانو ادو ادستay shamitadan bakhaar kan aad ka qaaday oo aad ku dhagaysid wax ajar ay leedahay iyo citri ajar baa laga helaa iyo citri waa sunno midna ma jirto ninka ugu dhow waxa laga sheegay la ba'sa firi la ba'sa laakiin ajar baa laga helayaa kuwana hadda waxay yiraahdeen culimada aimada qaybo kamida waaba kabaa'irta ugu waaweyn bay kamid rag baa yiri waxay kamid tahay dhaqanka yuhuudda iyo nasaarada lagu yaqaan rag waaweyn oo aimada suufiyada ugu waaweyn baa kamid Ghazali iyo Ibn Hajar al-Haytami ay kamid yihiin marka tasawufku wuxuu u baahan yahay dadka hadda sheeganaya maadaama fanni aad u wanaagsan inuu yahay soo ma jiraan islaamka dad badan oo muslimiin sheegta wax khaladana sameynaya soo ma jiraan dad badan oo muslimiin sheegta oo ahlu tawxiid oo abtirsanaya haddana gaf sameynaya soo ma jiro kadalika kuwa ahlu tasawufka sheeganaya oo abtirsanaya oo khalad sameynaya way jiraan ka marka muslimka shariicada islaamka wax ku khaldan sameynaya ما waxaan leenahay islaamnimada khaldan miyaan leenahay mise asaga khaldan ma leenahay asaga khaldan ma leenahay kadalika kuwan suufiyada sheeganaya ee gafka iyo khaladka iyo waxyaabaha aan diinta meelna ka waafaqsanayn sameynaya haday erayo lagu hadla tahay ama ficil ay tahay tasawufka xun macnaheedu ma sida kaasba islaamka xun aysan macnaheedu u ahayn ee kana xun weeye asaga in la radiyo dhammaan culimadii tasawufka madaxda oo ahaayeen nin walba kamid ragii waaweyn ka Junayd al-Baghdadi ragii waaweyna nin walba wuxuu leeyahay annaga dariiqadeena suufiyadu muqayyadatun bil kitaabi was sunnah waxay ku xiran tahay kitaabka iyo sunnada wixii shariicada islaamka khilaafsan anaga dariiq nooma sideena dariiqadan hogaanba kama noqdo ilaa nin cilmu shariica heer ka gaaray maaha nina waxba aqoon waxna aqrin waxna qorin inta waran dheer iyo seef garabka gashada tusbax macaan ku raay dhowr xabaa surka ku rita suufi baan ahay cidla nina ka yeelma dadka ahlu dariiqada ah fannigan tasawuf waa fanni jira ee la darsiyo la aqriyo sida funuunta kalaba ay u soo durisay oo culumtan fiqhiga iyo usul fiqhiga iyo arabiyada iyo maxaan ku raay funuuntan kala duwan ee xilliga nabiga aan jirin xilliga saxaabada aan jirin maxaan ku raay kulli laga wada qaadanayo shariicadana u wada adeegaya qawaacida diintana ku salaysan buu kamid yahay culimada islaamka diinta soo gaarsiiyana waxaan tasawuf soo marinay waa qalla wa nadar culimada musannifiinta ay kutubaha qoray way dhici kartaa inay jiraan dad inta jidbooda ahwaal kale iska gala oo maqan oo hadalla markaas sharciga daarkeeda khilaafsan ku hadalaya kuwa laftooda waa la radinaya lama daynayo wixii sharciga daarkiisa khilaafsan qofka waa la radinaya sida nabi Muuse uu isku celin waayay oo uu radinayo dadka noocaasi cudurdaar beelay xaalad kale ku jira sidii in badan oo aad aragtay ninkii hadda nabiga kaleey salaatu wasalaam uu nooga waramayo ummadii hore reer bani Israa'iil kamid ah ee daabadiisii inta ka fikatay asagoo meel cilla marayo oo ilaahay markii dambe daabadii si lama filaana ugu keenay maxaa ka soo fakaday ninkaas erey gaf asama ilaahu adoonkaygii baa tahay buu anna ilaahaagii baan ahay rabbigaagii baan ahay ma loo qabanaya ma farax dirtiis bil gaf sidina Umar markii nabigu dhintay waa kii yiri ma oran kartaa nabiga dhintay wariya yira nabiga dhintay soo jeest uu qaraacmo dad ahwaashaas oo kala gala way jiraan laakiin marka hore waa inay yihiin dad shariicada daahirkeeda wax ka yaqaana mid iska damdamla oo waa ahwaalaysan yahay waajid boday laga leexdo ma laga yeelay ka laftiisa wanaagsan oo heerkaas inta gaaray erayada khaldan ku hadlaya
erayadiisa khaldan ma lagu raacayo waana la radinaya ma laga yeeli waa la radinaya